walbo Soomaali aan dhex joogno ayaa la maamusi karaa gabar u mudan in la maamuso taasna waxaan u daynayaa bulshooyinka Soomaaliyeed meel walba ku nool yihiin waxbaan bilownay ku dayda waxbaan bilownay nagu soo beera waxbaan bilownay nagu bogaadiya anagana markaan si gooni ah runtii xiise igu leedahay barnaamijkan galabta waynu ku mahadsan yihiin SYP oo isu xil saartay soo agaasinka barnaamijkan quruxda badan waxaa barnaamijka aan ka qaadan doonaa inaan halkan ka aqriyo sababta gabdhahan iyaga ah loo soo xulay halka ay kala joogaan iyo waxa ay qabtaan gabadhaas iyada waxaa la yidhahdaa Ifraax Xasan oo joogta dalka Canada waxaa u gudoomi doona walaashay Samsam Daahir oo iyada usoo wakiilatay inay u gudoonto Samsam soo dhawow gabadhaas iyada waxaa la yidhahdaa oo si kaliya laaba moral iyo sacab kusoo dhaweyn doontaan Naciimo Axmed Ibraahim oo Naciimo abwaan qorana ku magac dheer waxaana u gudoomi doona walaalkay Maxamed Dugad ayay soo wakiilatay oo u gudoomi doona ayadoo ku hadlaysa magaca Ifraax Saciid Xasan iyo Maxamed la soo dhaweeya Qaarina Cabdi Cali Sacad iyo moral waxaa guddoonsiin doona wasiirka dhalinyarada gabadhaasi waa Zahra Qoraaco Sacad iyo moral waxaa lagu soo dhaweeya waa Zaynab Maxamuud Warsame Zaynab soo dhawaa Zahra Cabdiqaadir Cabdi waxay ka timid magaalada Kismaayo si ay uga qayb gasho xafladan waxaan kusoo dhaweynayaa imaanshaha iyo kasoo qayb munaasabadan dhiirigelinta waxay aada ii qiiro gelisay qadiyadii gabadhii ka shaqeynaysa racate Kismaayo waad ku mahadsantihiin inaad garateen haddii ay haddaan anagu garan weyn annaga ahayd inaan u garan laakiin inaad noo garateen waad ku mahadsantihiin waxaa kaloo rajeynayna inaad noo garataan waxyaalaha kale garan weyn waa hubnaa dhalinyarada inay maskaxdooda ka caafimaad qabaan dadka qaarkooda oo waaweyn oo culusaada oo adag tahay sidii lagu bedelaba waxaa la yidhi 4.5 ma rabno waa kelmadda ugu fiican oo maanta maqalna in qofkii lagu qiimeeyaa waxqabadkiisa waana dhibtay 4.5 waana dhibtay qabyaalad waana dhibay war anigu saaxiibkii ayna adeegaya bulshada ha is doorato dhalinyarada ha is doorato waxqabadkaa lagu doorto